boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من ولي بايدون الدنيا كجوكتان فيدنما وناكسن مالينما وناكسن حل وليبا يا وقت ولي بايدين تايكونا سودوادا كريبتو صومالي تي في او افري لباتكي ساعبا مرانو كوكولانو برامج كيني عرمها كريبتا دا ايانو جعلا هاينا ندلو وداقو وانا صاحبكي سيد كويدون هايا مركلة يا كريبتو صومالي تي في قلبا دور oo ay kamid yihiin qaar ka tirsan kandalo ama signalo ama indicator ama tilmaamayaal kala duwan oo sheegaya in Bitcoin loo yaabo in 2020ka uu goobo imika sida aanu naqaano ka qaalisan uu tagi doono iyo waxaad muuqda in signaladu ay tilmaamayaan in suuqa iyo ka helitaankiisu uu si tartiib ah u soo dhismayo marka lagu sii daro kala barka 2019 aandoho 2020ka May dhacaya ee la kala bari doono rewardka blockchain-ka Bitcoin uu ku shaqeeyo iyo dawladda China oo sheegtay iyaduna in blockchain technology-dani la yiraahdo ay wax weyn ka bedeli doonto dunida gaar ahaan marka ay noqoto qaab dhaqaaleedka dunidu uu u socdo. Dawladda China aysan diyaar u ahayn marnaba inay ka jiifato inay ku soo biirto tartanka cusub ee dunida dhaqaalaha dunidu uu wajahayo. وصاحبكين سيدكا oo idin dhahaya hadad kanalka ku cusub tahay like iyo subscribe sar asxaabta kala duwan ee nagala socota Anchor FM, Spotify iyo Apple Podcast-na waxaan leeyahay idinkuna qaybta maqalka nagala soo wadaaga warbixinadiina kala duwan iyo xogaha kala duwan ee aad dhihi karaysaan Crypto Somali TV waad la wadaagi karaysaan ama aydun ka heli karaysaan. waxaadna sidoo kale aad noo samayn karaysaan inaad review noogu samaysaan platformyada si kala duwan oo aanu heli karaysaan ama aad ka heli karaysaan in aanu samayno in xogahaasi ay noqdaan in asxaab fara badan oo Crypto Somali TV ku xiran ay halkaasi kala kulmi karto. waxay kale su'aalaha dhinaca Facebook iyo aan iraahdo dhanka YouTube-ka oo imika si live ah aydun nagala socotaan waad nagala soo wadaagi kartaan wixii ku saabsan kanaladan iyo sidii aan isula wadaagi lahayn. waxaan jecelahay inaanu imika sida aad shaashadaba aydun ka arkaysaan aan idin wadaago signalkan ama tilmaamahan oo tilmaamaya oo noo sheegaya qaabka kala duwan ee suuqu uu soo maray. waxaana la yiraahdaa 200 oo maalmood aan iraahdo 200 oo asbuuc oo kala duwan dhaqdhaqaaqii suuqa iyo sida uu ahay. waxay qaadan karaysaa muddo taariikh ah 200 oo asbuuc aanu soo xisaabino waxayna noo keenaysaa in xisaabtaasi ayna tusto suuqa iyo istaraatiijiyada aanu isticmaali karayno iyada oo signalkuna ay kala duwani noo saaran yihiin kuwaasi oo noo fududeynayo inaanu imika dhinacaygan hoose ee ku aadan ereyada madaxayga aynu ka arki karayno waxa suuqu horay nooga tilmaami karayay 2012 bishii April oo kale 2012 oo aanu arkayno in suuqu bubble colorkaas ah uu noo ahay ee kafe xigeenka yara ah balse markii dambe uu suuqu momentum kala helay buluugyadani iyo kalaradan kala duwanna waxay noo kala tilmaami doonaan haddii xalayeen kuwa cagaarka ah iyo kuwa gaduudka ah ee seelka ama iska gadida noo tilmaamayo oo sii sheegaya in suuqu meeshiisii ugu sareysay uu tagay. balse muhiimadu ma aha oo qurax inaanu eegno in suuqu meelihiisii ugu sareysay uu tagay waxa ay tahay inaanu ilaashano waa signalkan kale ee hoos socda oo isagu mar waliba suuqa raadadkiisa qabta isla markaana mar walba ilaaliya eriyada suuqu uu iska soo gala ee uu ka cross gareysmo ama 200 ee asbuuc meesha suuqa uu uga yimaado kandaladiisa kale ee taariikhiga ah. waxaana arkaynaa in signalkani imika uu noo tilmaamayo qaabab kala duwan iyo jidad kala duwan oo suuqu soo maray. marka aad aragto dadkii 2011 ku soo beeray oo kale bishii April in suuqa goobo hoose iyo Mars aan iraahdo oo kale ku soo beeray ay suuqa goobo hoose oo raqiis ah ay kaga soo beereen. ha kaga soo biiraane ma ayagoo qurax ayaa nasiib u yeeshay in ereyadaasi ay ka soo biiraan maya waxaa jiray qolo kale oo kalarkani buluugu maadaama uu kala yahay buluuga calanka Soomaaliga oo kale ee khafiifka ah iyo buluuga dhameystiran iyo buluug madow xigeenka ah. saddexdaas buluug oo iyaguna saddex qaab u kala shaqeeyo saddex kalarna kala leh oo
كان علنك Soomaaliya u eg khafiifka ah ee buluuga caadiga ah laakiin haddana si khafiifsan iyo buluug dhameystiran iyo buluugan madow xigeenka ah waxaan rabaa inaanu eegno kala duwanaanshaha qiimaha oo taariikhdu ay noo xusayso taasi waxayna tusi karaysaa in signalkani uu noo tilmaami karo maanta meesha aanu joogno iyo meelihii aanu ka nimid waxaan jecelahay in qaybtan aan ka soo tagno oo iminka aanu nimaano areadan oo kale 2000 iyo aan araxdo 15 May oo iyana ahayd goobihii suuqu uu karooska ka sameeyay isla markaana aanu ka arki karayno in xitaa kalarkan babalka oo kale oo July 2015 $221 Mareykanka la kala siisanayay xabadii Bitcoin ka meeshii ugu raqiisneedna noqotay labada asbuuc aan iraahdo 200 asbuucna karoosku uu candle-ku ka soo ag dhawaaday oo noo tilmaami karaysa haddaynu graafkani si fiican u fahanno inaanu arki karayno maanta meesha aanu joogno inay tahay meel ka soo gelid leh oo tilmaami karaysa in xitaa candle-kan kale ee gold cross kana uu noo tilmaami karayo ereyadiisan kale ee isaguna aan jecelahay in aan idin wadaago like dhaha asxaabtiinana la wadaaga muuqaalku inta uu inoo socdo wixii su'aalaana inta uu muuqaalku noo socdo waad nala soo wadaagi karaysaan Crypto Somali TV waxaana arkaynaa in kalaradu ay kala duwan yihiin taariikho kala duwanna ay xambaarsan yihiin marka uu tago buluugan calanka Soomaaliya oo kala ah ee buluuga khafiifka ama buluuga caadiga aanu naqaano oo kale inaanu arkayno laba aad u macaan in uu tagayo suuqu oo ay kamid ahayd in May oo kale 2017 dadkii ku soo biiray jaanis wanaagsanna oo helay ilaa iyo 19 Bitcoin in ay December ay ka gataan oo kale ay aad u wanaagsanayd oo ahayd sanadkii uu cirka isku shareeray Bitcoin taariikh ahaantiisuna uu double digit ka ahaa marka taas laga soo tago waxaanu arki karaynaa in uu noo tilmaamayo marka laga soo tago seelka iyo areadan kale ee levelka cagaarka oo kala ah 2019 January oo kale suuqu wuxuu ahaa areadii ugu hooseysay ee laga soo galo taas waanu isla qaadanay waanu isla wada ognahay dhamaan bahda Crypto Somali TV oo waxaanu ku ogeyn oo aanu ku haysanay candle-kani inuu ahaa in meeshii ugu hooseysay oo uu tagay 2000 iyo aan iraahdo December dhamaadkeedii ilaa bilowgii 2019 3000 iyo 100 ilaa 3200 areadiisaas uu ka soo kacayay 13,000 ayuu kisjaajada qaarkood ka tagay kan candle-ku wuxuuna siinayaa level ilaa 12,000 iyo jajab ah oo uu noo tilmaamayo balse iminka waxaad moodaa in aan haddana ka soo yara ag dhawaanayno 200 asbuuc ee crosska ahaa taasi oo keeni karaysa laba mid inaanu noqono oo ah in areadan buluuga ah ee iminka aanu joogno ee hoose ay not 7300 ee suuqa iminka Bitcoin laga kala siisanayo muuqaalkan live ka iminka uu baxaya Crypto Somali TV waxaana aydun ka fiiri kartaan chatkan webkan la yiraahdo lookintothebitcoin.com ama L2O iyo KIN iyo TO iyo bitcoin.com ayaad raacsiinaysaa gabagabada waxaadna u soo dhici doontaa graafyo kala duwan waxaadna weydiisan kartaa 200 maalmo 200 asbuuc moving average-kii ama dhaqdhaqaaqii suuqu uu lahaa iyo siduu uu ahaa taariikhdiisii wixii laga xusay iyo waxa aan ka baran karno waxaanu ka baran karaynaa in iminka aynan ka agdhaweyn areadii aanu soo galnay ee 2000 aan araxdo xilligii suuqa uu hoos u soo dhacayay ee 2018 oo dhan oo ahayd sanad suuqu uu hoos u soo wada socday ha u soo wada socday waxaanu kala duwanahay oo areadan kore ee aanu bilihii August iyo July aanu joognay ee sanadka 2019 waxaad moodaa in color blue oo caadi ah oo ahay oo tilmaami karaysay level ama faa'iido u qaadasho ah ama holding garay muddo dheer qaadan karayso balse iminka waa blue aad moodo madow xigeen inuu yahay kaasi oo noo tilmaami karaya inaanu iminka joogno areadii November 2015 oo kale oo ahayd areadii 3000 uu joogay kandhaladuna ay iska soo ag dhawaanayeen taas oo tilmaami karta in 2020 orodkii aanu helnay sidii ay dadkii 2015 ku soo biiray suuqani ee dhamadkii 2017
tobankii ama bilowgii sanadkii 2018 haygii ay heleen ama meeshii ugu sarreysay ee Bitcoin uu tago ay jaaniska u heleen labadii sano ee la soo dhaafay ee 2016 iyo 2018 dadkii xilliga 2015 ku soo biirayay area signalkan iminka 200 ee asbuuc uu noo sheegi karayo igaraal noqdo waxay noqon karaysaa in uu graafkuna siinayo in Bitcoin maanta uu yahay mid loo ilaashan karo iminka inta Bitcoin aad haysato inay ka wanaagsan tahay inaad la sugto sanad ama sanad iyo bar 2020 ama 2021 taas oo double digit kaaga dhigi karaysa waxa iminka qiimahan lacagta aad u haysato ee dollar ahaanta aad u xisaabsato laakiin weli Bitcoin aad haysato oo gacanta ku haysato haddaadan ku haysan waxaad awoodaa in aad la ciyaarto oo aad ilaashato in buluugani uu madow xigeen yara noqdo ama in aad iminkaba u asbuuclayso oo aad tiraado saddexdii maalinba laba maalin ayaan gadanayaa waxoogaa yar inta aan awoodo inta suuqu candlekan iska bedelaya taas oo iyana noo kaxayn karaysa signalkan kale ee isna aan jecelahay inaan idinla wadaago ee golden ratio-ga oo isaguna tilmaama xilliyada ugu macaan ee suuqa iyo jawiyadiisu iyo sida uu isu dul cross gareeyo taasi oo iyana fududaynaysa in aanu aragno taariikhdii ku dhawaad 2011 ilaa 2019 goobihii uu iska cross gareeyay oo uu graafka ka soo hoos maray qiimaha ah golden crossku iyo xilligiyadii uu ka koreeyay oo noo kala sheegi karaysa in suuqu uu soo dhisanayo iminka orod 2020 ama 2021 oo noo tilmaami karaysa in sanadka soo socda hadduu eebe nafta nagu gaarsiiyo bahda asxaabta Crypto Somali TV inaanu heli karayno momentumyadii ay soo kala heleen dadkii 2012 golden crosska iminka aydun halkani ka arkayno ama muuqaalka haddii uusan iga aadanin okay iminka halkan aydun ka arkaysaan aan flafta noogu haya ee 2012 kalubarkeedii waxaanu arkaynaa in golden crossku uu hoos soo maray markuu hoos soo maray maxaa dhacay waxaa dhacday in 2014 dadku ay momentum aad u wanaagsan heleen oo suuqu uu sanad iyo ku dhawaad 2 sano uu cirka isku sii shareerayay kadibna haddana waa isdul cross gareeyay oo 15 qiimo dhici ayaanu ogeyn waa uuna soo socday oo qiimo dhici halkani aanan ka ogeyn 2015 kan ayaana keenay in golden crossku uu soo down garoomo markuu soo down garoomay maxaa dhacay oo graafkii ka kormaray 2017 waxaanu aragnay iminka 18 dhamaadkeedii waa tii halkan nooga dhacday oo kale in ay dhacaydo oo ah halkan graafku sida uu bubble-ka colorka ah kaga yahay January aan araado iyo February soo qaban karaya gaadkaana walayna waka 19 February 2019 oo kale 3338 senti crosskaas halkan waxa uu inta naga siinayaa waxa ay tahay waa kan oo qura oo uu up down ahay oo anagu aanu down ka ahayn waanu dhaafnay 19 oo madax ayaanu ka qaadnay tan waxayna tusaysaa marka madax qaadkan oo kale inay noo keento ama in ay kan oo kale noo keento siiba kan 16 ayay u badan tahay in graafku markaan dib taariikhdiisu uu su qoro oo aad moodo in madaxa uu fiiqdo soo yara noqdo inta uu golden crosska madaxa la gelina uu ka dul tilaabo taasina waxayna tusaysaa waxa ay Crypto Somali TV inta badan aanu u nirahno ku talagal in maalgashigaada dhinaca Bitcoin-ka marka ay noqoto in ay ku wanaagsan tahay in muddada dheer in aad la ciyaarto oo aadan u fakirin biri iyo maanta iyo biri dambe dadkii xitaa asbuuci la soo dhaafay suuqu dhaawka ahay ee kunka faa'iido ee 6,800 ka soo helay hadday xitaa faa'iidadii qaateen 7,800 ilaa 700 ay ku qaateen iminka dib ay ugu soo noqon karayaan oo qiimihii waxaad moodaa Bitcoin ahaantu in uu soo yara dhacay oo dib ay u gashan karayaan xoogaagoodana ay kala saaran karayaan oo iminka 7,364.70 iyo waxoogaa la kala siisanayo
balse dhanka kale sida aanu la socono warbaahinada dunida oo dhan iyadoo ay sheegayso in kaandhaladani kala duwan ayaa haddana waxa ay soo baxaya kaandhalo kale oo iyaguna tilmaami karaya oo ay ka mid tahay kaandhalkan kale ee isaguna la yiraahdo Jekian Manivalo ama CMF ka loo yaqaano oo isaguna nala wadaagaya ama noo tilmaami karaya in suuqa ay imika bilaabatay in ay lacag ku soo qumato ama ay lacag ku soo shumato lacag ku soo shumidani suuqa ay sida tartiibka ugu soo socotana ay keeni karayso momentumyada laba shay oo iskaashan doono kalubarka Bitcoin ee halveninka block rewardka inta Bitcoin inflation ahaan sicir barahaan suuqa usoo gashay dhinaca miningka oo 12 iyo bar ah laga dhigi doono 6 iyo bar kalifi doonto in qualitygu dadka minersku ammaanka networkana ilaaliyaan faa'iidadoodana ilaaliyaan oo coinanka ay mine garayaan ay suuqa iska keenin waqti hore maadaama iyaguna laga sugayay inay bixiyaan in korontadii iyo wato computeradii iyo shaqaalihii iyo waxyaabaha fara badan oo u baahan iyaguna in cash ay helaan marka ay mining ka sameynayaan taas marka laga soo tago Jekian Manivalo ama CMF ka muxuuna la wadaagaya oo tilmaamayo in suuqu 2020 uu madaxiisu kor u qaadsan yahay oo madaxiisu suuqu kor u jeedo macnaheedu uu yahay in suuqa qiimaha aan imika ku naqaano ee 10,000 ama 13,000 ama 12,000 wax ka weyn laga sugi karayo oo dad fara badan oo traders ah oo cryptocurrencies uu ka mid yahay oo imika muuqaalkiisan nagula wadaagayo oo aanu arkayno in uu taagan yahay waxa suuqu tilmaami karaya sida ay Jekian Manivalo uu tilmaamayo in suuqu lacag ay soo galayso lacagta soo galaysana ay noqon doonto mid u keento suuqu inuu ceerka isku sii shareero wasaadalid iyo graafyo waxa ay tilmaamayaan ilaah ayaa garan kara xaqiiqda dhabta ah laakiin market goldka ama suuqa dahabka ah ee tilmaamaha dahabku wuxuu tilmaami karaya in momentumyadaasi in suuqu heli doono isla markaana ay kalifi doonto in aanu aragno qiimo aad u kala duwan haddii ay lahayd waxyaabaha dadku kala duwan ay saadaalinayaan inkastoo ay moodo ilaahay ayaa garan karo 1 milyan maanu ku arki doonaa 100,000 uu noqon doonaa cidii qooladii nasiib yeelatay ay noqon doontaa oo taas waxa waaye hadda ay noqonaysaa hal xabo Bitcoin ma meel ku sheegta haduu 1 milyan bir noqon doona laakiin ilaahay og waxay tilmaamayaan kaandhaladani in suuqu momentum haysto isla markaana ceerka uu isku shareeri doono 2020 inta uu san gaarin imikana ay lacag ku soo qufmayso cidoo nagala socotaan Crypto Somali TV waa saaxiibkiin siidka haddii aad nagu soo biirtay imika oo muuqaalka live-ka aad la kulantay like dheh kanaalka subscribe na saar asxaabtaadana la wadaag halkani waxaanu isku dhaafsanaa warbixinada kala duwan iyo digniinaha kala duwan haddii ahaayeen inaanu isaga digno tugada iyo scammeriska internetka ee qalin furatada ee Soomaalida G4 jaqda dadka nafta uga qaada ee tiraaho qora lacag noo dhiibta intaas namaal gashta lacagta aad namaal gashatana intaas ay ku faa'iideyn doontaa meel walba oo aad ku aragto lacag noo dhiibo waxaana ku sii doonaa faa'iido inta ah lacagtaadina way ku badbaadaysaa waa tuugo ee hantitada ha u dhiiban ballanteenu waa in aanu scammeriska aanu wadajir uga shaqeyno waan ogahay boqolaal ayay dhibtaa oo Soomaalidu inta badan waxaad moodaa in qof walba uu danihiisa ka fiiriyo markay noqoto dhinaca bulsho ahaanta laakiin in dantaada aad fiirsato waxa ka wanaagsan in danta bulshada oo dhan la wada gaaro sidaas daraadeed haddii aad doonayso in si wada jir ah aanu uga wada digtoonaano isla markaana aan uga faa'iideysano teknolojiyadani subscribe de kanaalka asxaabta ku soo biir imaa dhinaca Telegram groupka wixii su'aalaha iyo casharada ahna waxaad ka heli doontaan Crypto Somali TV inta muuqaalada Crypto Somali TV ka baxana live-ka ay u baxayaan wax allaala wixii su'aalaha ee ku saabsan teknolojiyadani cryptocurrency-ga iyo blockchain-ka waad soo dhiiban kartaa oo ciidana ka hor istaagi doonto intii aanu ka naqaano ama aanu kala soconno xogaheeda dhabta ahna waan kula wadaagi doonaa intii kalena wadajir ayaanu u baranaynaa inaga oo isku wada duuban mar walba sidaanu la socono ku dhawaaqidii madaxweynaha wadanka China ee Jinping uu ku dhawaaqayay in blockchain wax ciyaara aan wadanka China looga qaadan ee loo qaato teknolojiyad dhab ah kadib su'aalahaasi waxay keeneen in coinanaadu fara badan oo laga leeyahay wadanka China sida Tron, Anthology, Neo iyo kuwa kaleba
ay soo kabsadaan oo momentumyo aada u wanaagsan hadalkii madaxweynaha ay ka helaan maadaama qurba joog ay ka ahaayeen wadankoodii oo inta badan dadka developerada ay coinankani ka shaqeeya ay wadanka isaga soo kala tageen ama ay jirin exchange waaweyn sida exchange Binance si looga soo xiraba ay iska noqoto in wadanku dhinaca cryptada developeradu way haystaan dad wax soo kordhiya laakiin waxaan jirin xarumo dhexe oo si toos ah ay uga shaqeyn karayaan maadaama dawladdu ay ka soo horjeeday iminka waxaa jira kambaniyo aad u fara badan iyo forumyo kala duwan oo hadda wadanka China looga dhawaaqay oo ay ka mid yihiin company-gan la yiraahdo National Strategy kuwa kala duwan ayaan jeclahay waxa la yiraahdaa China Mutual Fund Association Blockchain oo Centric Group kuwan loogu yaro oo iyagu iminka aruuriya codsiga dalabaadyada kala duwan ee ka yimaada kambaniyada kala duwan ee iska diiwaan gelinaya dhinaca cryptada wadanka China maadaama cirka isku sii sharartay kulan kale ayuu madaxa dhaqaalaha wadankaasi China ee bankiga dhexe horaan u ahaa jiray madaxweynihii bankiga weynaha China Bank ama bankiga bulshooyinka wadanka China ninkan la yiraahdo Lilu uu taagan yahay kulan weyne ama shir looga hadlayay kulan dhaqaaleed dhinaca teknolojiyada oo lagu qabtay caasimadda wadanka China ee Beijing uu ku tilmaamay يرى النقطة أصحابته waxa uu sheegay in dawladda wadanka China oo imika ay bilaabi doonto in ay raadiso istaraatiijiyad iyadoo oo doonaysa inay soo iibin karayso yuan digital ah isla markaana la shaqeyn doona qaabab kala duwan ay u keeni doonaan balse isagu waxa uu si aada u sii falanqeeyay teknolojiyadani blockchain-ka waxyaabaheeda kala duwan kala saarideeda decentralized kuwa ah iyo kuwa aan ahayn oo uu si gaar ah u soo kala qadqatay oo waxaan arkaynaa in si aada uu kaga duway oo u taagan yahay blockchain protocol kaysu waxa kaliya ee lagu yaqaano waxa kamid ah shantii cashir ee Crypto Somali TV aan iraahdo shantii tiir ee Crypto Somali TV hore uga baxday oo ah udub dhaxaadka teknolojiyada blockchain-ka haddaad doonayso waa inaad heshaa shantaas haddaadan doonayna waa inaad local ama aad noqoto database noqon doonto local database oo wax weyn aan soo kordhin doonin waxaana ka mid ahay immutability aan ciidinaba aad sida idinku arkaysaan ama immutability-ga aan ciidina waxba ka bedeli karaynin isla markaana aan ahaan karin mid si hore ama waqti dhaqso ah ay dadi corruption ugu sameeyaan oo dhahan director-ka ayaa soo hadla bankiga waa in hadda la bedela income-ka bankiga maxaa dhahay cashuura soo socodsaara kale ma jiri doonto waa decentralized aan ciidna kala lahayn immutability ah cidna aanan wax ka bedeli karin consensus mechanism-keeduna sida Bitcoin protocol-ku uu banaan ku yahay waxauna si aad ah uga sii qaadanayay oo waxyaabo kala duwan uu soo qaadanayay iyo qaababka kala duwan ee centralized kala marka ay noqoto centralized-ka ama banki isticmaalka la isticmaalo daatooyinkan ama xogahan kala duwan haddii ay ahayd kuwan ku shaqeeya waxaan la yiraahdo private blockchain-kan ama DLT da waxaa la yiraahdo distributed technology iyaguna ah imika uu isagu u tilmaamayo CDL uu tagaya oo centralized distributed ledger ay iska sheegeen open source-geeda ka duwanaanshaha open source-ga dhinaca Bitcoin-ka marka laga reebo aysan ahayn wax uu isagu si aad ah uga helay balse waxaanu arkaynaa in China imika immutability-gu iyo decentralized-ku ay banaanka ka yihiin arki doona yuan ama lacagta wadanka China oo noqon doonta mid blockchain rasmi ah loo yeelo arkane waa sheekada aragane waa widaayo wixii jiraba waxa waaye wax la ka jira laakiin waxaad moodaa China markani in uu banaanka soo dhigtay oo uu doonayo in uu teknolojiyadani wax weyn ku kordhiyo habsaamida dawladda China aan iraahdo Mareykanku ay habsaamayso oo aad moodo in wili ay sida Mareykanku aan iraahdo imika ay China active uga noqonaya platformyadan kala duwan dhinaca teknolojiyada blockchain-ku ay kalifi doonto in ya garan doona 5G ga teknolojiyada iyo blockchain loo cabsi qabo in China ay dunida ku hogaamin doonaan la arko wax badan Silicon Valley company ku yaal oo dunida hogaamiya dhinaca teknolojiyada marka ay noqoto dhanka kale sidaanu la socono 24 saac la soo dhaafay suuqa crypto waxaad moodaa wili in down uu yahay oo lacag fara badan ay ka baxday coinan aad u soo qaaliyoobana aysan jirin xaqiiqdii
aanho afrilaata sac ya soo qariyo bixita ma jirtaan ku dhahay waa maanta waa la wada gaduudan yahay adeeg miya ya waay wadaayo hadle ku taala laakiin waxiligi la fiirsan jiray yaan ku boodaa waa doonta asbuuca waxaan arki doonaa asbuuca soo socda oo iminka dhinaca galbeedka loo furayo saacada kadib aanu aragno bal asbuuca kuwa hogaamiya in ay soo qaaliyoobaan iyo in aysan soo qaaliyoobin waana arki doonaa wixii kale ka soo kordha dhanka kale waxaad moodaa imaaka kaabkuna aad lacag iminka ay naga yara baxday haddana waxoogaa ayna soo galeen oo 199 ku dhawaad ayaanu mar tagnay ayaan filayaa haddii aanan khaldanayn aan soo qabto imaaka kaabka diib ayuu la kulmay oo 100 iyo waxoogaa in aanu tagnay ayaan filayaa أنا تقني بق سجاشن يستقال وكسر أقدواني ها لا بقول ما نمي ما ننه كان وندي داون وأنا تقني ها إريا دان وجيتنا هاد أو حواي وحانو تقني بقول سجاشن يسدد بليون دولار كأمريكان كابلسه وأنا سواق بسنة ومر قرال وصوش وقرا كصوش بتدور مليون إميكا 203 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaanu joognaa in maanta waxaad moodaa markabku in uu lacag ka baxbixisay weli sadhiibku uu sii jiro oo kan dalkeeni 4 saacan ilaa 205 bilyan dollarka Mareykanka aanu dhuminay waan arki doonaa coinan ka soo kabsan doona bitcoin dominance-guna waxaad moodaa weli in aysan jirin wax weyn oo iska bedelay marka laga tago in ay weli madaxa soo qaadayso أنا يمكن لك السنة يا سجل كل 387.7 الكوسنتي ماينس 11.8% أيونا داوني هاي إذ سيدو كلا إن بقول كونتون 7.8 وحنا داوني هاي 0.77 حد ودا بتكون كلية يا مركان دربح شكون على حاجة العاي كبحدي يا سوق قريبي تران مدة إنه 11.8% مدح كل سوق هذا يا كلا كور مدحة وسوق هذا VJ 17% كنا واجدي مدحي هراء بنكي جد حاجة وده كشينا واحد مده ليلو إن وركيسو وحاجة إن كوينن كان لنا إن شينا الموضوع وحكي تتعامل أي حاجة هذا نانو سجل أفتكي سولا بدي بس ديتن يلح برسنتج أو إكس سيدون كلا إن دبي هال دبي صدلي 7% أيوة حركة كوسو شريري وحوينا وتكبد علينا ولي كريبتو وما جيرتو نكسو ستيم 5% يسوق عليه بابا انجز سيدو كان هال برسنتج وكوسي دو يحي كوين يا فراتك ساعة سوق نقرو لكن وحبا كغلطنا ومالينا مانتا كوين ماكا كابكا أنا أركي دونا وحي كالو سؤالة هدي يسنجرين حانده لها إن كريبتو واسكاوت إن هود كنا موناكسنو هدي مقالك كاشي لايك ده أو سبسكرايب صار أصحاب تادنا لو دا كانالك wixii kale su'aalana waad nala soo wadaagi karaysaan hadii aadan joonayn indina su'aalaha commentiga asxaabtaada la wadaagi aragtidaadu maxaad leedahay Crypto Somali TV waa lagu soo kordhiyaa maadaama maqal ahaan asxaabtu platformyo kala duwan ay xitaa naga maqli karayaan oo aysan daruuri ama qasab ahayn indina YouTube-ka ay naga dhageystaan oo qora oo ay naga dhageysan karayaan mobiladooda iPhone-ka ama Android-ka hadii xaalad oo Spotify iyo Apple Podcast iyo Anchor FM TV ba Anchor FM ay naga dhawada dhageysan karayaan asxaabaha kalena ay dhinaca YouTube-ka iyo Facebook-ka ba ay nagala socon karayaan handii laha wixii su'aalaha gobolbo oo aad Crypto Somali TV kala socoto ugu soo reeb Crypto Wascode howdkuna ma wanaagsano iska mariska ama qalin furatada tugadana aanu banaanka iska dhigno waana saaxiibkiin siidkooda dhahayo inagoo isku wada duuban dhamaanteynba sidaas iyo nabadgeno nolol kula taliyo aman Allah boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo boqol sano